Waxaa isa soo taray wararka ku saabsan weerar ilaa hadda socda oo ay dabley ka tirsan Al-Shabaab maqrinimadii caawa ku qaadeen hoteelka Iswaal ee magaalada Muqdisho. Hoteelkan oo aad ugu dhow xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa caan ku ah inay degaan mas'uuliyiinta sarsare ee dowladda Soomaaliya, waxaana la sheegayaa in dad badan ku sugnaayeen xilliga la weerarayay. Dad goobjoogeyaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in hadda la maqlayo dhawaaqa rasaasta iyo qaraxyo bambaano, iyadoo dableydii weerarka soo qaaday iyo ilaalada hoteelka ay gudaha ku dagaalamayaan. Dad badan ayaa ka cararay hoteelka, qaarkoodna waxay ka daateen darbiyada dambe. Ilaa hadda ma jiraan warar madax bannaan oo sheegaya khasaaraha uu sababay weerarkan socda. Al-Shabaab ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegatay mas'uuliyadda weerarkaas, iyadoo intaas ku dartay inay xubnahooda ku dagaalamayaan gudaha hoteelka Iswaal. Hase ahaatee, ma jiro wax war ah oo ay dowladda federaalk Soomaaliya ka soo saartay dhacdadan. Weerarkan ayaa ka duwanaa weeraradii hore ee noociisa ahaa, kuwaas oo ku bilaaban jiray qarax lala beegsado albaabka goobaha la bartilmaameedsan jiray. Goobjoogeyaal ayaa noo sheegay in kooxaha hubeysan ay mar qura rasaas ku bilaabeen ilaalada hoteelka, kadibna ay u suurtagashay inay gudaha u galaan. Waa weerarkii ugu horreeyay ee Muqdisho ka dhaca muddo 5 bilood gudahooda. Amniga caasimadda ayaa muddooyinkii dambe muuqday mid soo hagaagaya. Hoteelka Iswaal ayaa horey loogu bartilmaameedsaday weeraro noocan ah oo khasaare weyn sababay. 22 ruux ayaa lagu dilay weerar dabayaaqadii bishii Agoosto ee sanadkii 2016 lagu qaaday hoteelkan oo amnigiisa si weyn loo adkeeyo. Weerar kale oo lagu bartilmaameedsaday isla hoteelkan Iswaal ayaa dhacay bishii Febraayo ee sanadka 2016. Wixii warar ah ee ka soo kordha dib ayaan idinka soo sheegi doonaa.